السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتك وحنا برايق بالشدة آد با إذين سو دوينيا وحان إذين باللابيا مقالة إذين بلنقاضي مقالة تحانا أو كسابسن حالة كسوانتي مقالة باردير آن سفر كوها أسبوعي دل سو دافي إن شاء الله تعالى دور الريموت أو كاميرا ديد قبطي أيا إذين لو ذا قدونا muuqaaladaas insha allahu tacaala muuqaalka koowaad ee aan ku bilaabaya wuxuu noqon doonaa muuqaal yaroo ku saabsan introduction yaroo ku saabsan magaalada baardheere iyo baardheere maadaama ay buundadii ka duntay maxay ku gudbisataa xamuulka ama waxyaabaha culus doon ama markab yar ayaan insha allahu tacaala idin soo gudbin doonaa kadib muuqaalada qeybaha kale dambe ayaan idinkula soo gudbin doonaa xaaladaha kale insha allahu tacaala marka Bahreer waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan dowladda Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa magaalada afraad ee ugu dadka badan ugu baaxadda weyn ugu muhiimsan koonfurta Soomaaliya marka loo fiiriyo tuulooyinka ku xeeran dhaqaalaha ay leedahay marka loo fiiriyo population-ka deganba marka laga soo tago Muqdisho Kismaayo iyo Baydhabo baardheere waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu horeeyay ee Soomaali degto magaalooyinka ugu qadiimisan baan ka wadaa dhanka cimriga marka la fiiriyo magaalooyinka ugu horeeyay ee Soomaalida degto waxay caan ku tahay beeraha iyo xoolaha nool bay caan ku tahay marka magaca baardheere waxaa laga keenay geed baar la yiraahdo oo ka baxa webiga jiinkiisa oo dheer ayaa laga keenay waxayna caan ku ahayd barashada cilmiga diinta islaamka ayaa caan ku ahayd culimo aad u tiro badan ayay soo saartay xilliyo hore marka Bahreer taariikhdeeda ma soo koobi karo intaas ayaan kaga gudbayaa marka doontan ama sheeg markabkan yarka ah ayaa noo soo socdo oon raaci doonaa marka kan ayaan rabaa muuqaalkan koobaad inaan dhowr qodob ka tilmaamo insha allahu tacaala doonta gadaasheeda waxaa ka muuqda meydkii buundada wax kale oo maanta aan ku tilmaamo walaa markan xaaladaha iyo duruufaha aan soo arkay dadkaas wax kale oo ku tilmaamo waa garan waayay meyd baan dhihi karaa qofkii ugu muhiimsanaa reer Baardheere oo ka dhintay laakiin aan la duugin ee hortooda ka muuqdo ayaan ku tilmaami karaa muuqaalkan gaarsiiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo gaarsiiyay reer Baardheere meyd ay daawadaan habeen iyo maalinba marka buundadaas oo ujeeda markii saa u jabtay reer Baardheere way ogaayeen dowladda si degdeg wax ugu sameynaysan inaysan jirin hay'adaha dad baan caawinaa dhaho ee beenta sheegana inaysan hore wax ka caawinayn way ogaayeen way isku tashteen oo markabkan yarka ah ama doontaas ayay sameysteen ayagoo isku tashigooda aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aadna waa u bogaadinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay fikirkeedii lahayd in la sameeyo baashan yarta sida hadda kaga muuqato tabarta reer Baardheere weeyaane markii ay u soo istaagtay baakinkeedii waka hadda waxa weeye la xirxirayaa ninkaas sheekha ah team dhan ilaa 4 qof asla xirxiri doonto in la celiyo baasha si aysan dib ugu noqon kadaha iyo maraakiibtii aad uma aqaan laakiin waxay muuqato xogaa technology-ga la isticmaalay in aad u liitay laakiin hadii waa tabarta iyo halka ay biday reer Baardheere ilaahay khayr ha siiyo cid walba ka shaqeysay marka waa kan hadda waxa idiin muuqdo xamuulka ay qaado waxa kamid ah gawaarida ay qaadaa waxay kala ku rartaan reer Baardheere gawaarida gaadiidka xoolaha nool raashinka adiga wax walba culus ayay ku qaataan marka tan baa waxay u tahay buundo dadkana way isticmaalayaan dadka way fuulaan oo ku gudbaan xoolaha waa loo gudbisiyaa gawaarida waa loo gudbisiyaa raashinka ama waxyaabaha culus oo dhan waa loo gudbiyaa marka waa ka doo ujeed baabuurkaas qooqanta ah neef geel ah saaran oo la soo gudbinayo waxaan aad ula yaabay ilaahay khayr ha siiyo marka baabuur saa u soo baxo halkaas hadda uu galayba muuqaalka waan kala gooyay oo waa idinka jaray laakiin baabuurka dhiiq u galay waxa hay'adaha local ku dadaalay waxa kamid ah hay'adda Al-Rahma waa ka soo baxay baabuurka meesha hay'adda Al-Rahma ayaa dhistay baakinka qaybtan soko iyo qayb kale oo shishe marka hadda ayaan kuri doonaa markabka ama doonta markabka yarka ama doonta baabuurka qaabku meesha u galay waa ka fahmi kartaa cabaar buu ku rafanayay meesha uu ka soo baxay marka waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan ka tilmaamo doontaas ama markabkaas yarka ah ayaan dhowr qodob insha Allah taala ka tilmaami doonaa meeshan waxa la sheegay inay dhistay hay'adda Al-Rahma waa hay'adaha localka oo gobolka Gadan wax badan ka qabtay wallahi aad baan ugu mahadceliyaa ilaa iyo 10 wax ka badan ceel bay qodeen jaamacad ayay dhiseen haddana
waxaa weeye way ka qayb qaateen reer Baardheere dhibaatooyin gaartay oo waxaa la ii sheegay 2 jaraanjaro in ayagu ay dhiseen oo mahadcelinaya hay'adda Al-Raxma. marka waa kan aniga markii aan soo fuulnay baabuurkaana waa la soo saaray yani baabuur kan mid kanoo kale ayaa ka gudbay oo baabuur oo neef geela waday oo gadigaas kala aaday bay kana wuxuu u socdaa dhanka gada marka ayuu u socdaa badanaa reer Baardheere waxay isticmaalaan baabuurka noocan loo yaqaano qooqanta baabuurka noocan ah oo waxaa weeye qooqanta ayaa la isticmaalaan ama pickup qooqan baa af Soomaaliga iska dhahnaa marka waa kana tiimka aniga la socday tiim injineera iyo tiim kamid ah guddiga dib u dhiska buundooyinka ayaana la socday marka dhowr qodob aan ka tilmaami rabo waxaa weeye quality xumada ay leedahay baalka waxaa la ii sheegay horta inuu ay halaabay ayaan dhexdaasa hada alwaaxan aan lugta ku tataabanayna waa alwaaxa boodiga u ah markabkan yarka ama doontan ma aha alwaax loogu talagalay in la isticmaalo laakiin reer Baardheere tabartooda aqligooda iyo aqoon way u lahaayeen waxaan aaminsan ninka dhisay baashan uu heli karay wax ka weyn laakiin lacagti iyo qarashka way ku door bidayaan hadda alwaaxan waxaa la ii sheegay aan lugta ku taaganahay inuu ahaa mid kamid alwaaxyadii buundadii jabtay inuu ahaa hadda meesha gudoomiyaha ku taagan yahay wuu ka burburtay waka jingadaas ay isaga dhagsadeen ilaahay ha barakeeyo reer Baardheere jingadaas ku dhagsadeen waka burburkaas ka muuqdo marka alwaaxan la isticmaalay alwaax taawala la yiraahdo weeye guryaha lagu dhisaa looguma talagalay in doon loo isticmaalo laakiin reer Baardheere tabartooda ay taagtooda ay tilaabsadeen ilaahay ha barakeeyo marka waxaan kale oo observe gareeyay insha Allah taala waana idin tusi doonaa matoorka loo isticmaalayo aad buu u liitay tabartiisa يعني waxaan ka wadaa maadaama baashan isaas muhiim u tahay waxay mudneed 2 matoor iyo ka badan oo si fiican awood u leh maxaa la jiray bustankiisa weyn yahay awood leh in loo isticmaalo maadaama baashan ay u tahay reer Baardheere buundo ay u tahay waa inta si doonaa insha Allah taala matoorka marka la isticmaalayna uu yaraa waxaa kale oo observe gareey ama dadka ii sheegay in overloaded lagu sameeyay oo ayaamihii cusbayd culaysyo aad u tiro badan la sameeyay markaas dhaawac ay u geysteen baashan oo ayaan ay ka halowdayba waxaa kale oo la ii sheegay ama aan fahmay ama aan soo observe gareeyay baashan kuma haboona mararka qaar environmental issues ayay yeelataa oo webiga reer Baardheere way yaqaanaan marna wuu buuxsamaa marna wuu guraa markuu guro oo kale meel ku socoto ma lahanba dhibaato kala kulmaan marka ummadda dhibaato ayay kala kulmaan ummadda muuqaalkan hala share gareey reegeedo Soomaaliya oo dhan hala gaarsiiyo madaxda waxa weeye ama cid walba oo dadkan u damqanayso hala gaarsiiyo marka matoorka raba inaa wax yar ka tuso marka matoorka waa kana hadda uu noo socdaa insha Allah taala waxa weeye qaybtii hadda waxaan joognaa soke isagoo xagga laga soo kicinayna waa idin tusi doonaa hadda toobaha sunta u xiriirsan shidaalku wuxuu ugu jiraa caag 10 la waxaan caag 20 la ugu jiraa waka 20 laas ugu jiraa waka wiilasha way ka makiinayaan ya muujadida fiilasha tan hadda waxa weeye waa markaan sii soconay markaan soo soconana waa idin tusi doonaa markaan soo laabanay midaan soo fuulna waa idin tusi doonaa oo qaabka loo kicinayo hadda waa maxaa la jiray fiilo ay isha ka geliyeen bay ku kiciyeen laakiin bal ila eegto kada markaan soo laabanay waa idin tusi doonaa webigaan ku sii dhex jirnaa waa kan webiga saas u baaxad weyn yahay buundada markii aan cabiray waa 130 mitir waaye ballaceeda waxaan ka wadaa dhererka ballaceedana waxa weeye waa 4.5 weeyaan ama 4.5 way ballaceeda yani waagaas design la sameeyay maanta isku mid ma ahan traffic flow ugu yaraa maanta se uu ka badan yahay oo inta ka badan ayaa la design gareyn doonaa insha Allah taala marka waa u jeedaa waa kan hadda meel dhex ayaan maraynaa waa gudbi doonaa insha Allah taala markaan gudubno waxaa idin tusi doonaa marka aan soo laabanay bal nooc u yaalo qaabka loo kicinayo bahalkan matoorka waarta hadda midkaan hadda fiirisid waa la kicin rabaa bal eega bal yani waxaa matoor u ah markabka yarka reer Baardheere bahalkaas ayaa matoor u ah qaabka loo kicinayo asla fiirina bal ma jeedaa ilaahay ayaga u gargaaro waka matoorka yani markabka reer Baardheere kaas ayaa wuxuu yahay matoor waka waa kicila yahay ku celi bal saaxiibkii ma waa kacay waa kacay soo sidiisaas uu yaalo ayuu u kacay alxamdulillah waa iska daboolanaya walaalkay waa daboolanaya daboolkiisu ri ku siistay annagana waana soo qaaday marka waxaan ka wadaa marka
dadka reer Baardheere saas ayay dhibaatada noocaas ay ku sugan yihiin. insha allahu tacaala muuqaalada soo socdana waa idin tusi doonaa qaybo kale. Hadda marka muuqaalkan waxa uu kaliya ku saabsanaa doonta iyo duruufta iyo xaaladaha rasmiga ay ku sugan tahay. intaas ayuu ku saabsanaa muuqaalkayga. aad iyo aad baa idin salaamayaa reer Baardheere, reer Gedo, reer Jubbaland, Soomaali oo dhan muuqaalka sheer gareeya, una sheer gareeya oo qolalkooda iyo guryahooda ugu geeya madaxda kuraasta isku haysato in shacabka reer Baardheere ee noocan ay baahida intaa leeg ay ka jirto. wax hal sano ka badan ayay burbursan tahay buundadan, hal sano wax ka badan ayay burbursan tahay. intaas ayaan kusoo koobaya muuqaalkii. Wassalaamu calaykum.